soo dhawaada maanta anigoo cabdiraxmaan bidhaane waxaa la jooga saaxiibkay maxamed daysane khabiirka kubadda cagta maanta waa 28 bisha Sebtembar waa maalin axada ciyaaro waaweyn ba dalkan Ingiriiska laga filayaa Daysane Newcastle iyo Arsenal oo Soomaali badan taageerto laakiinse labadeenu aanaynu taageerin ayaa wada ciyaaraya bal ka waran ciyaarta bidhaan horta aad kaaga mahad celina maanta horta sida la filayo ciyaar xoog laha jirto oo labadaba in ay ciyaarta guuleystaan ay ku tala jiraan Arsenalna waxaan la soconnaa in ciyaartii ugu dambeysay City gurigooda uu tan barbardhac la geliyay inkastoo Liverpool guuldaradii ku dhacday ay fursad u sameysay hase yeeshee maanta haddii laga badiyo dib ayay usii dhacaysaa fursad waxay haysataa maanta hadday badiso kaalinta labaad inay soo gasho 2 dhibic ayagii Liverpool ay u dhacayso laakiin sidaas fili doona kubad maanta xoog ayaa dhici doona qaasatan kubadihii dheer ay gacanta ay kusoo ridi jireen raggan Newcastle rag dheer haysta ciyaaryahankan Jarmalka ay keeneen Veltman nin aad iyo aad u dheer waaye danban ciyaartooyga ay dhaano geeska u taagan ciyaaryahan naftigiisa aad iyo aad u dheer waaye ciyaaryahankan Malik ay hadda keeneen nin aad u dheer waaye Botman aad u dheer yahay marka rag dheer ay haystaan maanta oo koonooyinka iyo kubadaha gacanta lagu tuuro cabsi lagu geli karo kooxda Arsenal marka haddii aan xogaa Arsenal dhinaceeda aado Arsenal 11 ay soo saftay waxaan la soconnaa ciyaartii City inay bedeleen Eze oo numberka 10aad aan loo keenay oo Michael Moreno la bedelay afkii hore Trossard iyo Gyökeres iyo waxaa joogo ciyaaryahankan kale laftigiisa oo numberka uga dheelo 11aad markan dhalinyarada Arsenal u ciyaaro oo aad iyo aad u fiican inkastoo qaybtii dambe la keenay Saka hadda waa lagu soo bilaabay marka labadii ciyaartooy City oo qaybtii dambe la keenay Saka iyo Eze labadaba waa la keenay minis macnaha weeraray ku ciyaarayaan waay laakiin Newcastle difaac ahaan runtii Danbana joogo Botman joogo Maliga joogo Liverminti ayaa joogo dhexdoodana waa dhex aad iyo aad uga haystaan dhexda ugu fiican ugu awood badan waxa physicalka loo yaqaan marka maanta waxaan isleeyahay Arsenal xagga xooga hadiisan farsamo in wax ku darin waa la muquuni doonaa John Linton Brazilianka nin dheer xoog la waay waa la soconaa Tonelliga Talyaaniga iyo ciyaaryahankan Bruno Guimaraes inkastoo nin gaaban yahay haddana waa nin aad iyo aad u dadaal badan marka waa ciyaar runtii maanta aad iyo aad u xiiso badan ayaan isleeyahay waan gartay Daysane waxaad ka dhawaajisay sidaynu arkayno waxaad moodaa kooxda Newcastle oo imika kor u socota oo adag inay kooxdaasi saarto culayska xagga xooga dad physically aad u dhisan sidaad sheegtay rag dhaadheer oo muruqyo waaweyn leh xagga Arsenal waxaan moodnaa inay ka farsamo badan tahay laakiin sidaad sheegtay xoog badan baa jira oo Newcastle ah xoogaasi maxaad isleedahay u bedeli karaya xoogaas wuxuu bedeli doonaa waa la soconaa Arsenal inay tahay kooxda waxa loo yaqaan koonooyinka ama geesaha laga soo gama ama hadda kubadaha gacanta lagu tuuro waxay noqdeenba hub la isticmaalay noqdeen oo Arsenal ugu badan maanta aan waxaan fili doonaa Newcastle inay ku shaqaysan doonto oo ugu yaraan 6 ciyaartooy dheer ayay haystaan oo ciyaartooyga Zula yar kale oo la dhahayo dhalinyaro oo dheer fadhiyo marka ciyaartooydaas dheer waxay keenaysaa kubadaha marka koonooyinka lagu soo rido in madax ay ku dagaalamaan foorooyinka ayagana markooda markay ku soo tuurayaan Arsenal in ay haystaan rag dheer ay iska soo bixi karaan kubadda marka maanta waa in Arsenal ay kubadda dhulka u wareejisaa meesha kor u wadileed markaan fiirina ciyaartooyga gaaban ay haystaan oo Zubimendi waa gaaban yahay ciyaartooygan Saka waa gaaban yahay Trossard laftiisa ciyaaryahan gaaban Gyökeres intooda badan waa gaaban marka laga reebo Gabriel iyo ciyaaryahankan oo yaro Christian Mascara la keenay ciyaartooyga Talyaaniga laftigiisa aad waa nin dheerna ma aha laakiin nin Calafiori marka waa arrin aad iyo aad u fiican maanta marka yaa ku adkaa karo koonooyinkii kubadaha gacanta lagu soo tuuro may arrinta naqon doontaa mase dhulka lagu wadi doonaa tii oo la imaan doonaan arki doonaa waxaan kusoo gabagabeynayaa markaad eegto labada kooxood afka hore ama weerarka waynu naqaanay weerar aad u farsamo badan weeyaan weerarka Arsenal waxay leeyihiin rag badan oo kubad samayn kara oo runtii wada aragtay Saka kale inta jeer u badbaadiyay kooxda weerarka maxaan labada dhinac ka filan karaa horta sida aan la soconno weerarkooda ayaga ninka ugu khatarsan waa Bukayo Sakana waxaa kor saaran ciyaaryahankan Danban leh waa ciyaaryahan aad iyo aad u dheer runtiina waxaan qabaa hadda ka hor uu xakameeyay muquuninaya haddii laga ilaaliyo oo qaladaadka uu ku gelayo laga dhigdhigo oo yellow la sii way dhici kartaa inuu dib ugu joogsado laakiin haddii loo dhaafo wuxuu ku muquuni waxaa dhici karta Bukayo Saka inuu dhaqaaqo haddii Bukayo Sakana ciyaaryahankan Danban uu ka awood baday ani waxaan qabaa markaas
inay Newcastle ay ku daynayso ninkan Bukayo Saka waxaan qabaa waa ciyaaryahanada geesaha ka dhigay ragga ugu fiican Premier League sababtoo kubadda asigoo wata ayuu wuxuu awoodaa inuu xarqin 18 meel fiican oo dhigo ama oo soo gala ayuu iskama sidaan la socoto ama uu ka gamaado horta Cabdiraxmaan ciyaaraha waa la socotaa nin Chelsea taageera tahay marka inkastoo ay nagu dhacday ku dhacday horta sideedaba dadka geesaha ka dhigay kubadaha markay soo galaan qaarkood waa iskaga ridaan sax iskaga rid ma socoto waa in aad fiirisaa saaxiibka meesha uu joogo Bukayo Saka wuxuu ku jiraa ragga ugu fiican oo geeska duu ka yimaado intaan kaftan ku daray reer Burcaan la daacadeyn jiray markaan geeska joogno waxaan oran jirnay in sidii reer Burcaan ciyaarsa yani kubadda waxaad xagga hore uga gee baas ma jiro waa hore u laado yani de hore u ganunde marka waxaad leedahay reer Burcaan hore u gama yani waxa uma eegan saaxiibkooda halka joogo waxa xagga hore uniga laakiin anigana aan kaftankaada waxaan ku daro aniga runtii reer Burcaan xushmadan u haya oo garoonkoodan ku ciyaara reer Burcaan waagi ciyaarayay studio ma ku jiro si fiican inoo soo dhaweeyay marka waxaan reer Burcaan aad u mahadsantiin uu mahadsan yahay saaxiibkay Maxamed Axmed Daysane galabta wax ka dhigsan kartaa BBC-da in cidi kale dib bay halkan faalada uga daawan kartaa waa anigu Cabdiraxmaan Badhaano waa mahadsantihiin halkan waa BBC London